magaalada Buuhoodle ayaa waxaa saakaasi rasmi ah uga bilaabmay olole nadaafadeed oo ay fulinayeen xildhibaanada golaha deegaanka dawladda hoose ee maamulka Khaatumo ee magaalada Buuhoodle waxaana qashinkani laga gureeyay guud ahaanba xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee dhexmara suuqyada magaalada Buuhoodle gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee dawladda hoose Maxamuud Cali Faarax ayaa wax warbixin kooban naga siiyay ololaha nadaafadeed ee ay saaka ka bilaabmeen gudaha magaalada Buuhoodle maanta ay bishu tahay 18 bishii 12aad waxaanu nadaafad guud aanu ka bilownay gobolka Cayn dhamaantii degmooyinka iyo tuulooyinka dhammaan baanu ka bilownay nadaafad guud ka bilownay waxaanu dadka ku baraarujinaynaa dadka degan gobolkan Cayn dhamaantii haday tahay kuwa degan gobolka haday tahay kuwa degan degmooyinka iyo haday tahay kuwa degan tuulooyinkaba waxaanu ku baraarujinaynaa nadaafadaasi inay ka wada qayb qaataan nadaafadu way soconaysaa maxaan ku idhaahdaa waa maanta way bilaabatay waxaanu jecel lahay oo waxaynu dhulkan ay marka laga tago riigaga waxa laga cabaa ay yihiin baraago iyo wara waaweyn iyo meelo badan oo aan aad u xafidnayn qaarkood waxaanu jecel lahay nadaafada aynu ka shaqeyno oo aynu ku dadaalno oo aynu wixii caafimaad xumo keenayo oo dhan ka hortagno marka waxaanu jecel lahay mar labaad idinku baraarujinayaa in nadaafada si buuxda looga shaqo galo baabuur gaadh ayaa ka hawl gashay gobolka iyada oo lagu baahiyay suuqyada shaariciyada waaweyn xaafadaha oo dhan iyo inta deriska la ah magaalada macnaha u muuqata laga qaaday nadaafad guud laga qaaday imakana waanu wadaynaa waxaanu in marna kale ku baraarujinaynaa dadku inay shaqeeyaan in dadku ay caawiyaan dadka shaqeynaya in lagu tabaruco xooga in lagu tabaruco maskaxda in lagu tabaruco dhaqaalaha oo arinta kulli la iska saaray xil la iska saaray ayaan doonaynaa anada golaha deegaanka kuna hadlaya afka xildhibaanada qaybta fulinta waxaan halkan idin ka cadeynayaa saad indhiina ku aragtaanba waxa maanta socda olole weyn oo nadaafadeed mana aha markii koobaad mana aha markii labaad hawsh hore baan u soo wadnay dibna waan u sii wadi doonaa annagoo ka duulana in bulshada iyadu ay hesho fayadhowr caafimaad anigoo ka mid ah ciidamada amniga Buuhoodle oo ka qayb galay nadaafada gaar ahaan magaalada Buuhoodle aan ka qayb galay maanta bilaawtay nadaafada iyo howlgaanta aan ku wadno Khaatumo State Soomaaliya